صفات تحبها المرأة من زوجها عوانك كلمة وامدة صفات يتلمامو أي هوين يذو تشعشهاي إنو ننكيذو كتلماناذو أما كسفيسناذو أما ننكيذا لغهيلو أيام كسو كوبيا وحانا كوبيلابيا qodobada waan sheegi doonaa horraaciya kelimo waxaan doonayaa inaan dhaho sida uu sheekhuba yiri al-kalimatu al-hulwa hiya miftahu al-qalbi sideedaba kelimada macaan iyo kelimada wanaagsani waa furaha qalbiga haweenkuna caadatan waxyaabahay ugu jecel yihiin waxaa kamida kelimo wanaagsan in lagula hadlo mar walba oo ninku uu xaaskiisa kelimo wanaagsan uu kula hadlo tasdaadu hubban li zawjiha waxay aad u sii jeclaanaysaa ninkeeda idan sifada ugu horeysa oo gabadhu ay jeceshahay waa taa'atullah وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم إنو يهينين كارنين إلهي رسول كيسا كحرا صلاة تكرية سومية زكاة بحينية محرمات كفقانية حدود رب العزة إلى لنا تبارك وتعالى وأن يكون صالحا إنو يهينين صالحة وعرب كيسو ونكسيهي وعقيدتيسو ونكسنتهي وعبادتيسو توصنتهي وربي كبك تبارك جل وعلا إسكن إلى لي حقوق إلهي أودوش كساري قلت إنت اللي يقولوا كان فوق هذا كوي اللي يكفروا صالح أن يكون صالحا قضب كاس وإن دوغات نيهو إنا يقبضوا هرت النوع أي ركتش عشاي مركا كوبات قضب كلابات oo ay gabadhi raka jeceshahay inuu noqdo ninkeedu wa an yahmiyaha wa yar'aaha nin ayada ilaalinaya wa inuu noqdo wa maxay an yahmiyaha wa yar'aaha wa yasuunaha 'an al-ma'aasi wa ashaabi as-suu yani nin u danqanaya wa inuu yahay oo ayada sharafteeda ilaalinaya cirdigeeda ilaalinaya ka ilaalinaya dhurwaayada adduunka yaacaya ka ilaalinaya asxaabu suu saaxiibada xunxun ka ilaalinaya wax kasta oo gabadha dhibaya ya salaam wax kasta oo gabadha dhibaya caafimaadkeeda dhibaya aqligeeda dhibaya jirkeeda dhibaya hurdada u diidaya والبهارينيا والولينيا وحاصل دنبو نينكو غبدي كا إلالينيا إذن هوينكو waxay jecel yihiin ninka ilaaliya حفظية بعد الله تبارك وتعالى xumaan oo dhanna kala dagaalama si ay u noqoto gabadh wanaagsan markaas ay ku tiirsanaysaa ninka biidnillahi tabaaraka wa tacaala shay qodobka saddexaad oo haween ay ninka jeceshahay waxa weey أن يتجمل لها بالمظهر وإنه يهينين شركي سؤال وقرحية يعني نظافة بدن مظهر كجذو حالي لذا شركة إيا نركة إيا وحي قفك كم مغضى مركو هل كامريو أيا مظهر ليلة داخلك وصامر طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يحفظ على ما فرضه الله عليه يعني قلبك إنه نظيفيه مظهر كجود إيا موقال كجود هذا نقطة برحنشة هذا نقطة شركة إيا نظافديسة وإنه نقطة غف نظافة له أو مركل الأركان لقو فرحيه وإنه نقطة انت وحادير والخلق الحسن وحسن المعاشرة وسخاء اليد وإسلا قلب كصدحانه نينكو إنو مظهرك قودنا كقروح بدنيهي أخلاق ذي سنة أي وناكسنتهي إيا ددل دقن كيسو سيدو كان معاشرة إيا حريرك إيا وضنولان شها
xaaskiisa ay wada nool yihiinna waa inuu yahay nin mucaasharo wanaagsan oo dhinac jilicsan oo hadal jilicsan oo hadal macaan waa inuu yahay intaa waxaa ka daran wa sakhaa'il yadi waa inuu yahay nin gacan furan qodobkan afraad yacni haweenku waxay jecel yihiin ninku markuu gurigiisa ka baxayo oo uu meel aadayo inuu u sheego oo uu yidhaahdo xabiibatii alghaaliya xaaskaygii aan jeclaayey waxaan rabaa maanta inaan halkaa aado saacadahaas baana maqnaan doonaa macnaheedu maaha inay say raggu ayna khalad u fahmin macnaheedu maaha inuu ka idan dalbayo oo uu leeyahay ma baxaa ma iska joogaa wadatashigaan ku imaan doonaa qodobka laakiin hadda waxaa la yidhahdaa min baabi tawaddudi walitmi'naan wa zarci fiqa baa la yidhahdaa baa maxay yacni jacaylka min baabi tawaddudi waalxub yacni waa arrin jacaylka ka qayb qaadanaysa itmi'naan iyo deganaan iyo xasilloonina xaaska ku beeraysa inay dhexdiinna kalsooni iyo fiqo adag inay idin dhex martana laga dhaxlaye lal isti'daan maaha inaad ka idan dalbayso maya qodobka shanaad almar'a haweenaydu waxay ka jeceshahay rag noocay ragga jeceshahay makuu sheegaa tuxibu zawjaha mubtasiman daa'ima waxay jeceshahay daa'ima ninkeedu inuu yahay nin markay isku soo baxaanba muusooda oo dhoollo caddeeya oo u qosla oo wejiga iyo indhaha iyo afkaba ooga qosla saasay dumarku ka jecel yihiin ragga bimacnaa dumarku ma jeclo nin cadhaysan 24 saac oo afka tuuraya haddee reerkoodii gabadha maxaad ooga soo kaxaysatay haddaad 24 saac iskaba cadhaysan tahay ood iskaba xanaqsan tahay oo fartuga ku gaadho miyayna gabadhu aynan xaq kugu lahayn inay kula faraxdo oo aad u faraxdo oo aad u qosasho oo nabigeenna soo ku dayasho nooguma sugno sallallahu alayhi wasallam anas wuxuu leeyahay ma arkin rasuulka weligay qofka ibtisaama badan ama ka muusood badan ama oga qosol badan qosolka oo qacqaad ah maaha waa qosolka dadka saalixiinta ah ay qoslaan weeye oo dhoolla caddaynta iyo qosolka yar ah weeye muujada idan haweenaydu daa'iman waxay ninkeeda ay jeclaan lahayd inuu noqdo nin markuu arko u qosla xaq bay kugu leedahay xaaskaaga inaad u qosasho ood u dhoolla caddayso ood u muusooto haa xaq bay kugu leedahay qodobka lixaad oo dumarku ay jeclaan lahaayeen raggoodu inay noqdaan waxay jeclaan lahaayeen ninkeedu inuu yahay mid mar walba u cabiritaan afka kaga dhawaaqa mar walba kelimaadkan mar walba ay gabadhu wanaag u samayso dhaha shukran ku shukriya gabadha oo muxuu ugu shukrinayaa bacda allah calaa an rasaqahu bizawjatin saalixa alla inuu ku arsuqay gabadh wanaagsan inuu dhaha yacni ilaahayga igu kaa arsuqay baan ku shukrin kelimadaan rabo waa mid ah haweenku saasay jecel yihiin nin ayagii ku shukrinaya min baabi man lam yashkur innaasa laa yashkur illaah nabigeena calayhi salaatu wassalaam wuxuu leeyahay qofka aan dadka ku shukrin rabbi kuma shukriyo idan haweenku ragga waxay ka jecel yihiin ninka gabadha mar walbaba waxay qabato ninka ka warqaba ee ugu shukriya ee ooga mahad celiya oo weliba yidhaahda ilaahayga igu kaa arsuqay baa mahad iska leh tabaaraka wa tacaala qodobka toddobaad haweenku waxay ragga ka jecel yihiin nooca ay ragga jecel yihiin dumarka waxaa ka mida ninka goorta uu qofka dumarka ah wax ka doonayo inay wax u qabato maalan inay wax u soo qaado maalan iyo waxa la midka wuxuu doonaba ha noqdee hase yeeshee uu ka baqayo inay diido duruuf mucayana xaalad mucayana ma caraa jirta
ما خلاف باجرة ما حنون باجرة ما وحن وحلا قادن كرا أهين وحو دونه بهالنقطة نينكا قارته وكبقيو وحن وحاسك أدر سرية إني كسو استاغتو دمركو waxay jecelihiin ninka u raadiya waqti munaasib ah ko waqti munaasib ah iyo kalimaadka iyo cibaaraadka iyo erayada ku haboon ee caatifada iyo dareenka qofka dumarka dhaqaajinaya taas oo ku keeni doonto waad arki doontaan ragga saa isticmaalo hatta gabadhu waxayna marka hore rabin inay qabato marka dariiqada marto way ku qabanaysaa waayo liana dumarka ayaa noocan sidan araga ka jecel qodobka sideedaad an yakuna dhu khuluqin hasan yani ninku inuu yahay nin akhlaaq wanaagsan umuman horena waa ku soo ishaarnay qodobka sagaalaad ee dumar ay jecel yihiin waa qodob aad muhiim u ah markaan sheegnaba arki doontaan bidillaahi tabaaraka wa tacaala awa maxay haweenaydu ma jeclo ragga kama jeclo qaabka la soo cawaysima ragga kale ee ama asxaabta xunxun haa qofku hadduu ku maqan yahay meel wanaagsan xoogaa indhaha laga laabtaa maalan khayr iyo wanaag iyo dacwo iyo diin iyo way dhici kartaa ayadoo mar walba in la kala maqnaado ahayn laakiin qofku inuu la soo dhafro ama uu la soo cawaysimo saacado aad u badan maca asxaabi suu aw yatacaamala macahum aw yudayica waqtahu fima yajcaluhu غائبا عن بيته وأسرته مقصرا في أداء واجبه معه هوانيدو ما تشعلو دمركو ما تشعل الرغو نينكو إنو اسكالسو لسو عويسمو داد آن معنا أوهينين ضيعنا واجب كريرك ويال كم مقرادو قريقيسي محوكا كم مقرانا يا كم مقنادو قيسكيسي عرورتيسي قوري سيحانيان كما ورقبو نعم هادو وحوانا سنكون مقنية هاي قراني لكن محاتكم مقنتهاي الماء إلا سيحيو إن عنت الله سيحيو عاضي قوضا لقا ورقبو عشاد قوضا لقا ورقبو لبس قوضا لقا ورقبو أذكارتا لقو أقريو آبوه ذي أركان هو يدو ذي أركان أيضا إسلات تعاونيا إسلات سيحينيا متكنا كان أسو قبينيو كان نسير أسمينيو والشرف وحرق هوسو لقما قضب كتبنات دمركون رقا أي كتش نوع أي جعلية وحاكميدا وحي جعلية نينك أطرة أدمرية قارت وعدينيو قارت ودوني إنو وانيو قارت ودوني إنو وحوشيغو وحي جعليه نينك سلطفا وقتي وناكسن إيقاب وناكسن وحوشيغ بالآدم كوننا ساسو جعليه سي قونئة قار وقتي قونئة إيقاب قونئة إيا كلمات قونئة تاند إلهي بأن أمره تبارك وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ورقا قاربا مركي ربان إلي غيركو ذا وحوش شاقان عرورتي إيا دادك أردنا وذا جوغا نينكو اسكبر قضاء قبل إيهاني كنت مرك لما دونيو نينكا مركو وحصحيو قوني إيا قور وقتي إيا مناسب كلمات إيا عبارات إيا رحمات دقنان حبي وطا حاسكاغا مركا ذو وشيرتو قاب كاسي دومركو تشعليه قاب كأمر الرقو مركا دونينا دومركا إنا نوعدينو أو آخيرك وشيرنو أودها استعمال عدكاغانا كرها وقيلين ولما مركي أي أولادي عرورتو أي تشوغان قضبك كوبية طبناد هوانكو رقا نوع أي جعليهين والنوع الصبرة وحي أبو الصبريان رقو وحي كسو فلي الدمركة أو قابنا لماذا؟ لأن الدمركو مسؤوليات بدن بيهيان مسؤوليات آذو بدن قارهان قبلي هدي شقيسة أما وحبرته انتاسي ووحكسي دير قرق شقدي تالي
laga yaabaa haweenayda haddii guriga joogto xoogaa nooca ma in la dhihi karo dee gurigaa joogtaa ayadoo shaqadu yarayn laakiin goorta ay gabadhi wax baranayso jaamacad ku jirto shaqaynayso adiguna aad nolosha reerkii uu saa noqday waxaa loo baahan yahay in laysu sabro sabar ziyaada ah أن يكون صابرا على ما يصدر منها من بعض التقصير بسبب كثرة مسؤوليتها خصوصا إذا كانت عاملة marka hadday gabadhu shaqaynayso ama wax baranayso ay u dheertahay gurigii waa in raggu waxay jecel yihiin qofka noocaas ihi haweenayda noocaas ihi ninkas la dhaqmayaay inuu u sabro ayay markaa ay jecel yihiin kuna shukriyo oo una mahadceliyo yidhaahdo adoo shaqadaa wadoo shaqayn adoo jaamacadda ku jira haddanana aad shaqadan ayada aad haysaa qodobka 12aad haweenku ragga noocay ka jecel yihiin waa ninka mar walbaba qaraabadii gabadha xusuusiya qaraabadeeda labadii dhashay aabbaha ma wacday hooyada ma wacday maanta biilkii ma loo diray ayaantan maada aadina ma aadid iyo waalidka kaliya ma ahe xataa saaxiibadeeda wanaagsan waa midka ka waraysta haye heblaayo ka waran heblaayo maalmaha lama maqale ma ka waraysaa waa saaxiibteeda wanaagsan iyo aqaaribteeda iyo qaraabadeeda unduruu ninku markuu nooca uu yahay haweenaydu mar walba ood aabbaheed kala sheekaysato kuna dhiirigeliso hooyadeed inay soo salaanto inay soo ziyaarato inay wax u dirto inay ka warqabto qaraabadeeda sida oo kale saaxiibadeeda wanaagsan kullama ay muhiim inaad u tahay ay garato waa kullama ay ku kalsoonaato waa kullama ay kugu soo dhawaato mar walbaba wadaalika ba khadiija nabi sallallahu alayhi wasallam waad ogtihiin oo taariikhda axaadiista iyo siirada inay noo sheegayaan khadiija sidii uu nabigu u xiriirin jiray xataa saaxiibade sidii u xiriirin jiray حتى انتو ناف اري اقلو ايا هيلم كذا لقيبين جري صاحبه اي نبي الى جري صلى الله عليه واله وسلم فاسال الله عز وجل باسماء الحسنى وصفات العلى انه نو انفع كلمات كان رجا يغنا وكو انفع انغو انكو كاهي دمرك يغنا وكو انفع باذن الله تبارك وتعالى الى حصوصتا كلمه كحيتا waxaan kaga hadli doonaa tan cagsigeeda oo ah tilmaamaha ay raggu jecel yihiin dumarku inay ku tilmaanaadaan intaanu kaga kulmayno xalaqada tan xigta waxaan idinkaga tegayaa astawdicukum allah iyo usra saciida iyo qoys wanaagsan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh